السلام عليكم dhammaan kusoo dhawaada youtube channelkeena waa orma waxaan kusoo gudbinaa halkan casharada ingiriiska waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan Soomaalida casharkeena maanta waa casharka labaad qaybta Naxwaha hore waxaa usoo qaadanay casharka koowaad hadduu waxaynu qaadanaynaa casharka labaad qaybta Naxwaha parts of grammar interrogative pronoun interrogative pronoun waxaa la yiraahdaa magac su'aaleed ama ereyada su'aalaha mar walba ereydan su'aalaha inta badan loo adeegsadaa waxaana grammar ahaan lagu yaraa interrogative pronoun magac su'aaleed waxaynu qaadan doonaa maanta ereydan what's maxaa where xaggee ama halkee how sidee who kuma which keeba when goorma qaabka jumlad loo dhis qaabka ayaa jumlad loo dhisi karaa what is this waa maxay kan what is that waa maxay kaas what are these waa maxay kuwaad what are those waa maxay kuwaas qaybtan this iyo that cashar kale soo samayn doonaa insha allah hadda waxaynu qaadanaynaa qaybtii faabta bid'eed aynu kusii soconaa waa casharkeennii labaad horey ayaanu sii soconaynaa what are you adiga maxaa tahay what are you adiga maxaa tahay what is he asiga muxuu yahay what is he asiga waa maxay asiga muxuu yahay asiga muxuu yahay what is she iyada maxay tahay what is she iyada maxay tahay what are we annaga maxaa nahnay what are we annaga maxaa nahnay what are they iyaga maxay yihiin what are they iyaga maxay yihiin what is iyada maxay tahay iyadoo xayawaana ama iyada siga xayawaana qaybta kale gudbeynaa waa weer xaggee ama halkee tusaale markaa dhegeyst xaggee joogtaa ingiriis maa lagu dhaaf casharka ayaan ku qaadanaynaa qaybtan waa tilmaama qofku meela joogo weer xaggee waa meel tilmaamidda mees qofku la tilmaama xaggee meeshee sidaas where are you xaggee joogtaa where are you kuwaawi xaggee joogtaa where are you xaggee joogtaa where is he how asiga xaguu jooga where is he how asiga ama xaguu jooga where is he where is he how iyada where is he how iyada amase xaggee joogtaa where is he where are they how iyada where are they where are they how iyaga xaggee jiraan where are they qaybtaas waaynu kusoo gudubnay waxaanu gudbaynaa qaybta how sida loo sameeyo jumladaha isku xerka qaybta hore soo qaadanay are mid walba wuxuu qaataa casharka labaad ayaan kusoo qaadanay he waxay qaadataa is waxa dhamaa hore usoo qaadanay they waxay qaadataan dhammaan casharka saddex ruwa aa u faahsanayd casharkan waa fahmi doontaa insha allah how are you sidee tahay adiga how are you sidee tahay how is he isaga siduu yahay how is he isaga siduu yahay how is she iyada sidee tahay how is she sidee tahay iyada how are they sidee yihiin iyaga how are they sidee yihiin iyaga how are we sideenaanay anaga how are we sideenaanay anaga how is it sidee tahay iyada qaybta ka gudbaynaa what maxaa ama waa maxay
What is English? Waa maxay ingiriiska? Waa maxay ingiriiska? What is computer? Waa maxay computer? What is health? Waa maxay caafimaad? Waxaynu soo gudbaynaa qaybta where. Where is Ali? Awa Ali. Where is Aisha? Qaybtan maraa hore usoo qaadanay, laakiin qaybtan couplets ay ka dhigaynaa couplets. Waxyaaba ayaa igna naga maqnaay. Where is Ali? Qof magaciisa oo kale ah. Ali waa magac. Caash waa magac. Marka raad doonaysa inaad qof magaciisa sheegto qofkii goobtaa ka maqnaay, waxaad dhihaysaa qofka meesha ka maqan goobta ka maqan. Markaa qof weydiinaysid qofka markuu maqan yahay, waxaa leedahay where is magaciisa ay ku daraysaa where is Ali. Where is Ali? Aw Ali. Where is Aish? Where is Aish? Aw Aisha. Where is the book? Our book. Where is the book? Our book. Where is the pen? Our fanica. Where is the pen? Our fanica. Dhammaantood waxaynu ku soo qaadanay cashirkan what's, where, how, who, which, when. Laakiin dhammaantood maanan si fiican faahfaahin ugu bixin. Waa fahan. Waxaa ugu horeeya hadaa fahantaa hadda ma fahmaysaa. Insha Allah whona waa sidoo kale fahmi kartaa. Which keebaa waa waan gaarmaa halaas insha Allah markaa way qayb kale ka samayn doonaa sidii